magaaladan iyadaahi wasiir waxay u diyaar garaysan tahay inay raacdo magaalooyinkii kale ee Soomaaliya ayna qaadato barnaamijka doorasho qof iyo cod ah inay qaadato waxay magaaladan u diyaarsan tahay systemka loo guurayo geedi caanay ayay magaaladan u diyaarsan tahay waxayna rabtaa inay la jaan qaado siyaasadda siyada oo la yiraahdo doorashada qof iyo cod ee la jaan qaaday rabtaa laakiin waxay rabtaa 10 kun oo qof baa ku nool 10 kun oo qof waxay rabaan xuquuqdoodii xuquuqda intii kale way haystaan waxa ka maqan degmo waa ku celcelinaya hadalka isaga ah haddaysan degmo helinina xoogaha bugtaa jiraysa waa ku celcelinaya hadalka isaga magaaladan iyada way istaaheshaa degmay u baahanta ogeynay in badan in bulshada codkeeda maxaan ku raahdaa iyo xaq ay leeyihiin inay iyagu masiirkooda hogaamiyaan ee aysan shakhsiyaad u daba fadhiyin aanu hello aad baan waxa weeye uga mahad celinaynaa hadda shakhsiyaadka muxtaramka ah oo inta waxa weeye soo geedi gelinayay fikradahooda iyo waxa weeye in ay halkaas soo gaadho maantana waxa weeye waa waqtigii masiirku shacabku ay hogaamin lahaayeen iyagu aragtidooda haddii ilaahay idmo aad baan deegaan ahaan iyo reer bacadweynahan u soo dhaweynaynaa inaan waxa weeye barnaamijkaas soo dhaweyno kana qayb qaadano gacmo furanno ku soo dhaweyno aad baan kaaga mahad celinaynaa inaanu noqonno horseedkii ugu horreeyay inaad annaga nagu soo hagaajiso aad baan kaaga mahad celinaynaa gobolka mudug oo ay ka mid tahay deegaanka Bacadweyn ama degsimada Bacadweyn waa horseedkii waana la guurayaa haddii ilaahay idmo muhiimadda ugu weyn waxa weeye hadda aan codsanayno xuquuqaadkaas ka mid ah in la helo waa barnaamijka xuquuq aan xaq u leenahay ee qof iyo cod kaasna waxa weeye waan rajaynaynaa dawladdana waa ku garab taaganahay horta inaan kala shaqeyno waan rajaynaynaa inay noqoto meelaha ugu horeeya ee lagu bilaabi doono dimuqraadiyiinta si aan u gudano xuquuqaadkeena cidda aan u aragno masiirka waddanka inay tahayna aan u doorano wasiir degsiimada waxaa ku nool bulsho 10 kun gaaraysa oo bulshada noocyadeeda kala duwan isugu jira marka loo fiiriyo bulsho weynta reer Puntland kaga duwan inay dimuqraadiyadda u bisil yihiin waxaa jiray nidaam dawladeed hadda curdin ah bilowna ah ka degsiima ahaan anagu waxaan rabnay doorkeena inaan ku muujino waxaan rajaynaynaa fariintaas waa baxday waana ku soo gaadhay barnaamijkaas geedi caana leh dad u diyaarsan oo yaraan weynaan oday cuqaal culimo intaba lehna waan nahay haddaan nahay dhalinyaro ahaan waxaan mar walba u diyaarsannahay Puntland la wada leeyahay iyo sharciyad walba ka sareeya waxaan doonaynaa oo aan codsanaynaa oo aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa una taaganahay dawladdana aan ku garab taaganahay naf iyo maal ku bixinaynaa in la helo qof iyo cod waayo waa nolosha dhabta ah waa dawladnimada dhabta ah waa systemka dimuqraadiga oo la isku soo doorto qofku xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto ama la doorto magaaladaana waa magaalo aad iyo aad u fahansan arrinkaas dhammaan degmooyinka kalena waxaan ka codsanaynaa waxaan fahansanahay oo doorashada ah inay nala qaataan dhammaantood magaaladan sida odayaashii horeba u sheegeen bulsho badan baa ku nool ilaa ay dhiibiyadooda haddii lagu daro waa 20 kun kama yara ugu yaraan 18 kun way ay dhiibiyada haddii lagu daro bulsho ballaaran baa ku nool systemkii degmooyinka aanu ka hadlamay odayaashii baa ka hadlay laakiin waxaan awoodda saaraynaa qof iyo cod in la helo laakiin hadda reer Bacadweyn iyo ummadda reer Puntland waxaa diyaar loo yahay doorasho in la helo laakiin facility-ga lagu guuri lahaa sidii loo guuri lahaa baa la rabaa inaad adigu manage garayso oo aad keento xisbiyadii hadda ima muuqdaan waxay ahayd intayada meeshaan fadhidaa inaan kala doorano xisbiyad oo xisbi walba uu keeno afkaartiisa iyo wixii aan ku dooran lahay marka waxaan u malaynayaa wasiirku inuu yahay facility-gii doorashada iyo qaynuunkii iyo sharcigii sidaan ku geli lahayn iyo xisbiyada iyo sidii loo kala saari lahaa iyo waxaas inay wasaaraddu ka shaqayso baan filayaa ay gaar u leedahay laakiin ay tahay inaan kala dooranno xisbiyo dadku isku aragti maaha isku fikir maaha isku rabitaan maaha isku dan maaha qof walba waxbuu danaynaya haddee bilow aadankan in moralka laga dilo ma fiicna annaga marakan xoogaa waxaad moodaa dismoral inaannu sii noqonayno waayo waannu weynay rajooyinkayagi marka waxyaabo badan baa isu kaayagalayoo jidkiiyoo naga burbursan ilaa gaalkacyo
oo ilaa intaas nala leeyahay waa laydin samaynayaa oo naloo samayn waayey degmaa laydin siinayaa oo aan heli weynay waxyaabo badan baa isu kaaya galay marka waxaan leenahay dawladda Puntland il gaar ah ha ku fiirisa bacad weyn yaa niyada nala ka dilin wasiirkaana arrintaas maanta noogu xil saaran oo aanu rabnaa inuu fartiinaga geeyo anigu waxaan ka mid ahaa ergadii gaalkacya ka tagtay oo ka qayb gashay in Puntland la dhiso oo muddada 4 bilood 5 bilood waan u fadhinay magaalada Garowe ilaahayna maanta waa nagu gooleeyay maantana meesha ay marayso waa la og yahay maantana waxaanu rabnaa inaanu ka guurno barnaamijkii ahaa wax soo xulisda odayaasha arrintaas dhibaato badan bay wadanka ka abuudhay ismadii waa tarma namadoonadii waa tarma hawshaas waxa la rabaa in maanta looga gudbo oo ay odayaasheenii kaliya waxaan leenahay iyaga danbaaba baday hawshaan dawladda hadin ay qabato dani ku baday weeye dhib bay ku qabaan iyagii baa intaas hiifaya ku kala tegayo maalin walba baa calaamad marka doorasho dhacdaba dhowr dhaqan baa calaamad saaraya taasaan ku shir karayna marka iyaga ruuxooda nabad helaya waana loo baahan doonaayo iyaga ruuxoodu dadkooda ay ku aabuliyaan doorashada xisbiga rabaan bay u riixayaan kaalintooda ay helayaan khilaafkii soo dhacay dadka ku dhexdhexaadinayaan marjac bay noo noqonayaan odayaashu waxa la yiraahdaa marjac noo noqdaan marjaca mushkiladda weeyo odayaashu marka mushkiladu waa dhacaysaa noloshay ka mid tahay waa la isku dhicin siyaasadahan dhinac walbaba haddii marka odagu hor ordo isagu dee marka uu madaxa la isla galo xagee loo noqon marka waxaan rabaa odagu inuu geedka noo fariisto harka weyn halkaa shaaha ku cabbo wiilka iyo gabadhaba isaga adeer u ahay ay halkaa ku tartamaan wixii ka soo baxay isku qabtaan oo geedka u fariisto u garnoqo oo marjac ay noo noqdaan ayaga saasaa sharafta ugu jirta anagoo dhanna saasaa sharafta noogu jirta marka arrintan waynu u dhannahay inagoo aan u kala harin oo wada jira maan rabnaa in aynu wada gallo wixii aan ciladan aynu waa ogahay laamigu waa xun yahay gabdhahana ila socdayoo waxay dhaheen jigjigtay keliyahana xanuunay anigu waxaan lahaa war haddaad mari lahaydeen sanad ka hor ama 2 sano ka hor sidaanba ma ahayn laakiin hal ogaada wax badan baa gobolka ka socda shalay waxaan la dhagax dhigay dekada garacad markii la sameynayaba lama aaminsanayn dad baan lahaa garacad ma dhacayso riyo bay ahayd iyo dadaal أنا waxaan ogahay reer mudug dekada haday sameeyeen doorasho wax walba kala waa sameeyaan taa horta waa hirgelaysaa teeda kale hadda waxa socota wadada gaalkacayo iyo Garowe qorshahay ku jirtaa waqtiga African Development Bank bay ku qorshaysan tahay marka waa gaalkacayo ilaa iyo Garowe waxa socota garacad ilaa iyo Tuurdibi waa wada kale oo idinka ah oo gobolka ah dekadii baa sameeyeen nabad baa ku nooshihiin marka gobolkaani maanta horta ugu rajo wanaagsan yahay taayna ogaataan way wadadaan qorshahay ku jirtaa waqtiga taasna xoolaheena aan ku dhisnaa ilaa iyo buurtiin la ilaa iyo xarfo ilaa iyo Garowena casuurtii laga qaaday ganacsatada baa loo luuxiyo lagu dhisaa tanna qorshaheena ku jirtaa marka waxayna inaga dhisanayna waa la og yahay wadadaan inay tahay halbowlaha dhaqaalaha Puntland beledweyne ilaa iyo Boosaaso marka haddii wadadaan xumaato nolosheena oo dhan bay ku xiran tahay marka wax la ilowsan yahay maaha waa ka hawlgalaynaa jaamacada horta ilaahay ha barkeeyo ciidaasay ka bateen أنا waxaan kaga kalsoonahay marka laga dug marka ay tiraan 8 dugsi oo dhexe iyo 2 dugsi oo sare anigu taasaan kaga kalsoonahay laakiin idinku waa sameyn kartaan community-ga anagu waa ogahay jaamacada wax walba waa sameyn kartaan annagana wixii nagaga aadan oo qareemid iyo wadayeyn iyo dhinac walbaba waan sameyn karaa meeshaan community xoog leh oo qurba jooga wax ku oolana waa leedihiin gobolkan waa leeyahay anigu waa ogahay oo wax walba sameyn karaa marka waxaan leeyahay aan riyoono riyadeena waa hirgeli kartaa marka waxbayna ka xumaanay insha Allah